salaamullaahi calaykum idil ahaantiin bay khiyaarta hawada nagala xidhiidha meel kaste oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteennii faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeena diiradda ku saari doona mise gawa oo ka tirsan gobolka galgaduud ayaa lagala wareegay kooxihii al-shabaab indhowaalaba ku sugnaa taasi oo haatan gacanta ay ku hayaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed. dhanka kale magaalada laascaanood ayaa la sheegayaa in gebi ahaanba la jaray isgaadhsiintii xilli lagu dilay oday la sheegay inuu ahaa mu-aadin iyo weliba gabadh ardayada sida wararku nagu soo gaadhayaan. xaalada magaalada laascaanood iyo deegaanadaasi ayaa kasii daraysa kadib markii ciidamada ambaba maamulka somalilan ay kusoo daadgurayeen ciidamo aada u fara badan. dhanka kale waxaa la sheegayaa in dhanka baadiyaha ee magaalada laascaanood laga baqdin qabo inuu dagaal ka dhaco taasoo isuga horyimaadaan ciidamada reer khaatume iyo weliba maamulka somalilan ciidamo ka socda. daawadayaal dhanka kale waxaa la sheegayaa in madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland axmed karash uu soo gaadhay deegaanadaasi kaasi oo wato ciidan aada u fara badan. dhanka kale warar ayaa isa soo taraya in deegaanka tukaraaq uu ka socdo dagaal xoogan oo u dhexeeya maamulka somalilan iyo ciidamo ka socda sidii la sheegayo puntland. qodobadaas iyo kuwo kaloo xiiso badan ayaan daawadayaal barnaamijkeena ku qaadaa dhigi doonaa waxaana barnaamijka ila habeyn doona oo ila qaadaa dhigi doona saaxiibka gooni oo inta badan ka faallooda guud ahaanba geeska afrika. gooni faragoda waa mahadsan tahay. aan haddaan ku hormarno deegaanka masegawa waxaa laga saaray ururka al-shabaab oo muddo 12 sana ka arriminayay waxayna ka tirsan tahay gobol galguduud. marka shabaabka waa la iskala tegay deegaanada hirshabeelle haddana waxaa la isla galay galmudug. marka maalmo dhaweeto waxaa laga qabsaday deegaan lagu magacaabo galcad haddana waa laga sii gudbay. ciidamadu waxay si degdeg kula wareegeen maanta deegaankaasi masegawa. marka waa istiraatiiji waana muhiim. hadda waxaa ay go-odan culus ku jiray al-shabaabka ku sugan ceelbur iyo galhareer iyo webxo waxaana laleeyahay xaaladdu way kusii adkaanaysaa maadaama laga qabsaday deegaan istiraatiiji ah. marka ceel dheer naftikeeda go-doon ay ku jirtaa. marka shabaabka hadda awoodda ay adeegsan karaan aada u yar tahay maadaama aysan wado kale u furan aysan jirin. saaka waata iskugu dagaalamayaan shabaabka deegaan lagu magacaabo dabagala oo u dhow xardheere 15 kilomitir u jirto ayaga dhexdooda isku dagaaleen. meesha sargaal lagu magacaabo daqare ayaa ciidamo la goostay kaasoo iska hor imaad ee dhexmaray nin lagu magacaabo nuunaale oo asagana xardheere haystay ciidamadeeda. marka xaaladdu way adkaatay. shabaabka ayaga hadda kala shikiya xabadana isku bilaaba. marka saakay 7 qof ay iska dileen 15 iska dhaawaceen ilaa haddana way soo fadhiyaan deegaan lagu magacaabo dabagala oo ilaa hadda aan wax natiijo laga gaarin. ciidamo fara badan aan isku hor fadhiyo shabaab ka tirsan. marka shabaabku meel ay hadda u baxsadaan ma lahan. dhanka xardheere badda meel ahna u furan ma laha. meel dambe ee shabaab aadi karaan ma jirto. inay soo dhiibaan iyo ninka badda galaya inuu galo wax ka dhexay mala fargodow. marka xaggii ku dambeeyey ciidamadan la sheegayo inay ku dagaalameen maxay dowladdu qeybtan rabtay inay isu soo dhiibaan ay gacan u siin waayaan si ma garanaysaa kuwa kale loogu jabiyo. fargodo horta marka hore khilaaf caadiya soo kala dhexgalay qaabkii loo maareyn lahaa dagaalka iyo qaabkii loo wajihi lahaa iyo qaarkood waxay leeyihiin waa isdhiibeena. marka waxa muranka keenay labada nin waxay kasoo wada jeedaan nuunaale midka lagu magacaabo xardheere haysto iyo ninkan asagana sargaal sare oo lagu magacaabo daqare oo asagana gaalkacyo kasoo jeedo. waxay isku haystaan qaabka dagaalka loo wajahayo. ma dagaalkaa la galaa ma dagaalka waa la iska joojiyaa ma hubkaa la dhigaa see go-aan lagu gaaraa. marka khilaafka meesha ayuu ka bilowday. marka ninka nuunaale lagu magacaabo wuxuu amar ku bixiyey ciidamada daqare oo wato oo shabaab ka gadooday rabana inay dowladda isku dhiibaan in xoog lagu soo maqooniyo. meeshii marka waa dad isku degaan oo iswada yaqaano. meeshii dagaalka markuu dhacay fooda la isgeliyey waxba waa la kala cuni waayay. kuwa weerarka soo qaaday waa laga dilay 4 kuwan hadda oo lasoo weeraray 3 laga dilay 7 qof meesha ku dhimatay 12 labada dhinacna way dhaawacmeen. marka waa la soo fadhiyaa dagaalka xabadii in la isku wado iyo in la kala tago waa la kala laayay. waxaa la ruux isku dhamaanay xaaladdu ma sahlano. marka ninkan hadda dhanka wuxuu soo jiraa mudug ayuu soo jiraa dhanka gaalkacyo soo jiraa waa meesha u baxsan karay. marka hadda waxaa leeyahay dhaawaci iyo waxba meesha yaalo inay soo qaataan ay rabaan ee dhankaas gaalkacyo u baxsadaan. qaarna waxay leeyihiin heshiiska dowladda weli go-aan ay samaysan gaarin oo dowladda xiriir fiican kama haystaan. marka waxay ka baqayaan hadday orod ku galaan in xabad lagu bilaabo ayagana oo dhanka shabaab maadaama difaac looga jiro. marka connectionka waxay iska saxayaan leeyahay ishag wasil oo ah meeshay rabaan inay isku dhiibaan u tagaan. marka xaaladdu way adag tahay. marka ciidanka imisa lagu qiyaasayaaba la sheegay ciidamadaas 70 waa gaarayaan jira 70 macal sargaalkaas hadii lagu daro. waa gartay. marka ciidamo badan waay. marka shabaabku mar hore soo afjari lahaayeen 12 haday soo afjari lahaayeen laakiin waa ciidamo 70 gaaray ilaa 72. marka taas ayaa xaaladda adkeysay in la soo afjari waayo dagaalkuna saas ku dheeraado. aad iyo aad baad u mahadsan tahay. dhanka kale haddaan u wareegno gooniyow deegaanada sool iyo sanaag oo inta badan ba labada maamul ee puntland iyo maamulka somalilan ba dhibaato kala kulma ayaa la sheegayaa in haatan magaalada laascaanood in dhawaalaba shaqaqa ay ka jirtay haatan laga jaray gebi ahaanba isgaadhsiintii. arrintaasi maxaad warkaas ayada? والله horta laascaanood dagaal culus ayaa ka socday. xaaladdu way xumaatay. waxaa lagu dilaa leeyahay nin askariya oo ka tirsan ciidanka Soomaaliland kadib markii qoryaha ay la qabsadeen
shacabka reer laascaanood. marka xaaladdu way adkaatay, isgaarsiinta hawada laga saaray, saaki isgaarsiinta way diiday inay damiso, dadka saraakiisha way diideen, xoog ayaa lagu muquuniyey, isgaarsiintana hawada laga saaray. dad dhif ah oo halhal ayuu waxaa la yidhi qadka u shaqeynaya ama telefoonka, inta badanna uma shaqeynaya, dadka magaalada isgaarsiinta waa laga damiyey. marka xaaladdu way adkaatay, dagaalo ayaa laga baqayaa. Axmed Karaash oo Puntland ka xanaaqsan oo dani ku xanaaqay qaabka u wajahay dagaalada ayaa wuxuu soo qaatay tuutaha, wuxuuna soo gaaray Buuhoodle iyo deegaano u dhexeeya meesha la yidhaha Laascaanood, wuxuuna aad usoo kulaalayaa inuu dagaal ka qayb galo oo dagaalka hadda ka socdo Dukaraq. waxaa laleeyahay waxaa isku fadsaaray ciidamada Somaliland iyo nimanka la yiraahdo ishag ciidamada Puntland oo qaybta Laascaanood deegaan ahaan kasoo jeedo. dagaal toosa ka socdo, haddana wararka say nagu soo gaarayaan dagaalku wuu socdo, caadi u bilowday. ninkan Axmed Karaashna meesha waa soo gaaray. marka xaaladdu waa adkaatay, xaalad culus ayaa lagu jiraa. hawadii isgaarsiinta laga saaray, ciidamadii oo lasoo dul dhoobay, xabadii oo bilaabatay, xaalad culus, dagaalka foolka fool ha socdo Fargodow. marka waxaa la dhihi karaa xaalka hadda Laascaanood wuu xumaanayaa, meel xun ayuu marayaa. wax hadda ka dambeeyo oo lasii sheegay ma jiraan, marba haddii dagaal oo bilowday sidii laga baqaaya ay noqotay in faraha laiskula tegay. marka xaaladda waxaa leeyahay ilaahay waxaa ha qaboojiyo, laakiin xaaladda bariga dhexe ayay maraysaa. Muuse Biixi Cabdina wuxuu u egyahay nin go-aan gaaray oo reer Khaatumo inuu laayo ugu talagalay, maadaama asagoo dhihi jiray Siyaad Barre na laayay oo hadda ka hor ay ka sheegi jireen reer Somaliland oo xasuuqa dhaay, hadda asagana uu xasuuqa leeyahay reer Laascaanood. marka waxay leedahay dadka qaarkood waxay leeyihiin waa argoosi oo Siyaad Barre ahaan dadkan maadaama isxigaan isku beel iyo reer daarad isku yihiin wuu ka argoosanaya. marka xaaladda dadka siyaasadda micnaha saas dad asaas dhahay micnaha. marka anaga saxaafadda ma dad baa na soo cayn doono dhihi doono warkiin waa saas. marka anaga Somaliland iyo Khaatumo kale ma jecelin, dad Soomaalida shacabina laaya ayaan diidanahay oo kaliya, wariyaal ayaana nahay. marka qofna kuma xadgudbayno, dadka na soo caynaya reer Somaliland waa walaalaheen, kuwa hadda u doodayna micnaha reer Khaatumona waa walaalaheen. marka wax noo kala duwan ma jiraan. marka waxaan leenahay xabadda hala joojiyo, wanaagna ha lagu dhameeyo Fargodow. waa tahay daawadayaal, waxaa la sheegayaa in maanta nin mu-adina iyo gabadha weliba ardayad ahayd oo deegaanada Laascaanood ka soo jeeday lagu dilay magaaladaasi. dhanka kale ciidamada RRU oo ah ciidamada la dagaalanka argagixisada ayaa inta badan baaritaan ku haya magaalada Laascaanood, waxayna ka shaki qabaan baa layidhi gooniyow in ay hub iyo magaranaysaa waxyaabaha magaranaysaa ayaga dhibaato u geysan kara ciidamada in lagu tuhunsan yahay inay dadka qaarkood ay haystaan. dhanka kale ciidamo la sheegay inay reer Khaatumo yihiin oo dhanka iyo Buuhoodle kasoo dhaqaaqay ayaa jira, waxayna ku sugan yihiin baa layidhi meel aan sidaa uga fogeyn magaalada Laascaanood oo magaranaysaa isku urursanayaan. ciidamadan waxay wataan qoryaha darandooriga u dhacaya, weliba waa ciidamo aad u hubaysan, weli ma aysan wareejinin ama ciidamadii wareejiyay hadda ka hor ee heshiiska la galay maamulka Somaliland kuma aysan jirin. markii laisku soo duuduubo waxaa laga baqayaa baa laleeyahay inuu dagaalku sii fido oo marka dambena Puntland iyo dhanka ay kusii beeraan. dhanka kale gooniyo waxaa la tilmaamayaa in madaxweynaha maamulka Puntland uu u qabtay shir golaha amniga, taasi oo in dhawaalaba uu diidanaa in dagaal uu ka bilowdo deegaanadaasi. marka muxuu kula muuqdaa dagaalkani ama saameyn muxuu ku yeelan karaa deegaanadaasi iyo dadka xilli iyadoo lagu jiro adag? maxaad is leedahay? walaa dagaaladaasi meel xun ayay marayaan, mana wanaagsano saacadan lagu jiro oo dadku abaar ay kasoo baxeen, xaaladdu ay adag tahay, doorashooyin ay qarka loo wada saaran yahay, qolo walba doorasho ay ku jirto. maamulada Soomaaliya intooda badan doorasho ayaa ku jirto. Muuse Biixi oo sidoo kale asagana waqtigii ka dhamaaday, hadda marka waxaa laleeyahay Muuse Biixi wuxuu go'aansaday inuu qalalaaso ama dagaal ka abuuro deegaanadaasi Khaatumo si hadhow micnaha doorashada laga mashquulo laguna mashquulo dagaalka. mucaaradka Somaliland waxay ku baaqayaan in ciidamada laga saaro Somaliland Laascaanood iyo deegaanada ku dhow, inaysan shacabkaas in la xasuuqo xaq aysan u lahayn oo maanta wax ay galabsadeen aysan jirin. haddii nin ayaga ka tirsanoo siyaasi caan ah haddii la dilay, xaq ayay u leeyihin inay banaan baxaan oo dadka micnadarada lagu dilayo la joojiyo. marka dad fara badan ayaa eedanaya Muuse Biixi Cabdi, waxayna ku eedanayaan inuu awood u eedegsanayo dad shacab ah oo haddana ka tirsan maamulkiisa. marka waxaa fiicnaan lahayd in xaaladda hadda dagaalka lagu jiro lagu bedelo wada hadal ama nabad. ciidanka Somaliland waxaa loogu baaqaya xataa oo Mareykanka iyo wadamada kale oo Yurub iyo reer galbeedkuba ay ku baaqayaan in Muuse Biixi Cabdi talada oo ka daaya qaabku hadda wax ku wado oo xaaladda qaboojiyo, wada hadalna wax walba lagu dhameeyo. marka ciidamadii Puntland ka yimidana dagaalku way soo galeen, Dukaraqna hadda dagaal ka socdo. ninkii la yiraahdo madaxweyne ku-xigeenkii asagana Karaash wuu soo gaaray deegaanada, xaaladdu ma wanaagsano, dagaal oo kafool haddoo socdo xaalad meel xun ayay ku socotaa. marka Fargodow waxaa fiicnaan lahayd in Muuse Biixi Cabdi intuu dib isugu laabto, ciidamada meesha uu ka saaro, wax walbana wada hadal lagu dhameeyo, dadka shacabka la laayana go-aan laga gaaro oo aan lagu sii wadin dhibaatada. duqeynta iyo shacabka madaafiicda iyo loo haysto waa dhibaato fara badan. isgaarsiinta laga jaray, cuntadii iyo laga jaro, guryahoodii ay micnaha isheeg ay ku goodoonsan yihiin, aysan bixi karin maanta nolol maalmeedka soo saaran karin. marxaladda lagu jirana hadda geeska Afrika la dareemi karo. wallahi wax aad u xun ay la tahay Fargodow. waad mahadsan tahay daawadayaal, barnaamijkeena intayna soo gabagabaynin garaad
jaamac ismaaciil oo ah garaadka weliba deegaanada ninka lagu magacaabo gooniyow meeshan hadda laasacaanood garaadkeeda oo garaad jaamac la yidhahdo ismaaciil ayaa ka hadlay arrintan wuxuuna ugu baaqay maamulka somalilan iyo ciidamadooda inay kala baxaan dadka ay leynayaan iyo shacabka ay dhibaateynayaanna in la joojiyo. waxuuna sidoo kale sheegay in gebi ahaanba adeegii iyo weliba isu socodkii iyo noloshii bini-aadamkaba ay haatan qeylqeyl ku jirto oo magaaladii wax adeega uusan ka jirin. daawadayaal barnaamijkeenii faaqidaada intaa ayaan kusoo gabagabeyneynaa. intaan dib damba ugu kulmi doono midkan mid lamida waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.